أما هالنقطة عبادة قلبية، الخوف والرجاء والخشية والرضا والإخلاص والمحبة والتوكل عبادة قلبية. هالنقطة أما هالنقطة محي عبادة عربة وإلهي الذكر صلى الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلهي حسكيس وبراكتيكال haddii wardigaagu uu bato deganaanshiyahaga badanaya, bale dadka warwarka iyo qalaqu ku dhaco uu kaa tegaya. warwarka iyo qalaqa badani uu kaa tegaya hadduu dikrigaagu badan yahay, adigoo soo jeeda haddaad dikriyayso. sawgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa ninka ilaahay xusa iyo ninka aan xusinin mathalu lxayi waalmayit bay la mid yihiin buu nebigu leeyahy. qof dhintiyo qof nool faraqa u dhexeeya intuu leegi ma isu kombeergarayn kartaa qof dhintay iyo qof nool? wuxuu nebigu ku tilmaamayaa inay isu dhigmaan labadaa tusaale, qofka ilaahay xusa iyo qofka aan xusin, inay sidaasoo kale isku yihiin. sawgeed baa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati maxaa layna yidhi fascaw ilaa dikri illahi wadaru lbayc dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun. munaafiqiinta markii la ceebaynayay ilaahay muxuu ku tilmaamay walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan. haddaynu inagu markaa qaliil xusno maxaynu soo baxaynaa? sifa min sifaati lmunaafiqiin baad yeelanaysaa haddii hadday kugu yaraado ilaahay xuskiisa. qalbiga waxa nuuriya ee iimaankiisa xoojiya waa ilaahay dikrigiisa oo aad badiso. qur-aan badan baana mas'alada ku soo arooray oo tilmaamaya. ilaahayna wuxuu ina leeyahayba ana cinda danni cabdii bi, addoonkaygu wuxuu iga malaynayo maalahay. oo dee haddaad ilaahay malihiisa wanaajiso wa ana macahu idaa dakaranii buu nebigu leeyahy. ilaahay baa wuxuu leeyahy addoonkayga macii baanahay hadduu xuskayga badinayo, hadduu i xuso oo naftiisa iga xuso anna waa xusaya. hadduu goob dad jooga iga xusana goob ka fiican halkuu iga xusay. bini aadamku wuu magac jecel yahay soo maaha in la sheego dee la yidhaha ninkani waa hebelo waa kaasoo waa magac jacayl. ilahay wuxuu leeyahy xataa haddaad magac jeceshay halkan magaceedu naf ma lehee samaawaadka kuwa joogaanu kuu sheegaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. meel halkan ka magaca roon ayaa lagaa xusayaa. cibaadaadka ku saabsan weyso, salaad, zako, soon, xaj, jihaad iyo kayrkeedba cibaadaat aljawaarix iyana inaynu badinaa baynu u baahannay si iimaankeennu uu xoogaysto. waxyaabaha iimaanka xoojiya markaa waxaa ka mid a waxaa alle jecel yahay inaad ka horraysiiso waxa naftaadu jeceshay. waa kii nebigu tilmaamayey 3 qofka helaa iimaanka macaankiisuu hela, dhadhanka iimaankuu hela. qofka ilaahay iyo rasuulkiisu agtiisa lagaga jacayl badaya wixii ka soo hadhoo dhan. ilaahay rasuulkiisa haddaad si dhaba u jeceshahay waxay iyagu jecel yihiinna waad ka jeclaanaysaa waxa kale. iyo qofka ilaahay dartii walaalkiisa kale muslimkaa u jecel, iyo qofka neceb inuu gaalnimo ku noqdo siduu u neceb yahay inuu dab ku dhaco. waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxaa ka mid a inaad ka maqnaanin meelaha khayrka lagu hayo, majaalis dikr. oo saxaabi ka mida qoladii waxyiga qori jirtay ayaa maalin nebiga u yimi isagoo leh ilaahay rasuulkiisiyo waan munaafaqooday buu yidhi. nebigu wuxuu ku yidhi wamaa daak, waa maxay arrinkaa munaafiqnimada kuu keenay muxuu yihi? wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo markaanu kula joogno ee aad naar iyo janno ka warranteenna wacdidana waxaad mooddaa inaannu naarta iyo jannada ishaba ku hayno. markaannu kaa tagno ee dumarkii iyo carruurtii iyo dayacaadkaygu, dayacaadku waa xoolihii iyo wixii uu haystay uu ka shaqaysanayay, xirfaddiisii ama xoolihiisii ama shaqadiisii, aanu shaqooyinka gallana wax badan baanu ilowna. yacni markii aanu kula joognay sidii aanu ilaahay u rumaysnaynee qalbigayga u soo jeeday uma soo jeedno markaannu meelahan kala joogno. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay haddaad ku sugnaan lahayd ay joogto idiin noqon lahayd marka aniga ila joogtaan sidaa tihiin iyo inay ilaahay xuskiisaasi ku jirtaan mar walba malaa'igtaaba suuqa idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahy. suuqyada iyo furshaantiina korkooda ayaa malaa'igtu idinku salaami lahayd.
لكن حنظلة وقلنا بكويري ساعة وساعة ساعة دي ساعة لما ساعة لفرن بدبا ما يبقى على شيء ساعة إيمانك أدحوق وحوجسو هي ساعة الضنها عادي قاسك غبستيت مركا goobaha diinta lagu haya goobaha ilaahay la isku xasuusinaya ada u baahan ilaahay nabigiisa Muhammad alayhi salatu wasalaam ayuu wuxuu u tilmaamaya wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadashi wal ashi nabi Muhammad baa leeyahay fariiso oo ku sabir meesha ku ilaahay xusaya ay joogaan ee ilaahay wajigii uu doonaya ولا تعد عيناك عنه إيش هكلا لين با إلهي لي يكلا فضضان تدك إلهي حصة يمشي جوغان يكلا فضضان با إلهي لي أدقو تريد زينة الحياة الدنيا هذا راد عيني نرى شبر كذا ولا تطع هيال با إلهي لها أقبل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كون قلبي قود اللي مدوبيي إلهي حسكي سكا مدوي هاي هودي سيسكر راعي كوا وركوده هدقيسني إذا مجالس الذكر ما لها الدين تلوهي إلهي لو اسكو حصوصنا مساجد صاحبك وناكسن وإنما وقت الماما يقف ولما المرء على دين خليله بنبوة الماما قفكو دين صاحبك بكتشنا وحين لنا وحا صور لمي وحي شيئا إن إيمانكو حوكسو وقتك قوابا دراد دي دوحكو سو كوبيا haddaynu leeyahay iimaanku wuu koraa waanu naaqusnaa haddaynu rabno iimaanka inaynu taxqiijino waxaynu u baahannahay ilaahay inaynu baranno iyo diintiisaba iyo shareecadiisa wanaaggeeda inaynu baranno kownkan inaynu u fiirsanno aayaat alkawniya inaynu si fiican u daraasayno waxa ilaahay nimcayna siiye sida laynoo buunbuuniyey ee laynoo karaameeyey walaqad karramnaa bani aadama marka ilaahay leeyahay bilaash maaha inaynu qur-aanka baranno iyo aayaadkiisu waxa ay sheegayaan inaynu cibaadaadkeena iyo dikrigeena badino inaynu majaalista ilaahay lagu xusayo ka agdhawaano ugu dambayn macsida iyo meelaheeda inaynu ka fogaano oo macsidu waa wax keenaya in iimaankaagu dib u noqdo oo aad hoos u dhaadhacdo waa wax keenaya maadaama waqtigu iska koobaya waxaan ku gabagabaynayaa haddii uu nabigu tilmaamay iimaanku wuu gaboobaa sida maradu dushiina ugu gabowdo ilaahay weydiista buu nabigu yidhi iimaanka inaan laydin cusboonaysiiyo wixii adduunyadiinaa sooma ilaalisaan wixii adduunyada ah lacagtaada meel baad ku hubisaa socagaa maaha jaamacaddaadii waxaad dhiganayso meel baad ku hubisaa diintaadana haddaba ilaasho iyadaa ka qiimo badan inta kaloo dhalay oo wixii aad u aragto inuu diintaada iyo iimaankaaga kobcinayo ha ka tegin wixii aad u aragto inuu waxyeelayo bedel haddaad sidaa ku dadaasho meel baad gaadhi doontaa qantara aan shaki iyo khuraafa iyo warwarku kaa tago waad si fiican diinta kuu biyo dhigto aad u suganto waqtigaas ka kooban marka intaasaan kusoo koobiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu